أيها الإخوة والأخوات، وحفرحاد أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وحنا نوجد دون بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. caawa way taariikhdu tahay kowdii rajab sida la filaayo 1442 hijriga. waxaynu ku gelaynaa muxaadaro cunwaankeedu uu yahay min maxaasin addiin alislaamiyi wa kamaalihi. mowduucaas waxaynu ku gelaynaa masjidu rashiid, bal intaynu ka gaadhnayno insha allahu tacaala ayaynu wax ka tilmaami doonaa. mowduucu sidiisa waa mowduuc ballaadhan weeye, laakiin waxaa laga bixinayaa waa tilmaamo. diintu dhammaanteed waa wada maxaasin. xukun kastoo axkaamta shareecada ka mid oo la soo qabtaa oo aan maxaasin iyo wanaag koobsanaynin ma jiro, wax nuqsaan iyo ceeboo u sugnaatayna ma jirto. haddii lays yidhaahdo diinta islaamka maxaasinteeda iyo wanaagyaalkeeda ka warrama, macnaheedu waxay noqonaysaa diintoo dhan in laga warramo. dee diintoo dhan ka warranka laga warramayana laguma soo koobi karo muxaadaro iska daaye muxaadaraat laguma soo koobi karo macduuda. ha yeeshee waxaynu tilmaamaynaa usuul guudna waa tilmaamaynaa, tusaalayaalna waa sheegi doonnaa. waxaynu kaloo tilmaami doonnaa insha allahu tacaala shubahaadka qaarkood oo dadka qaarkood ay ku soo arooriyeen diinta ama ay is yidhaahdeen ceeb uga dhiga, inaynu shubahaadka qaarkoodna ka jawaabno. ugu horrayn, diintu saynu soo sheegnay dhammaanteed waa wada maxaasin iyo kamaal. waayo allah oo khalqiga abuurtay, wax walbana ogoo caliim ah oo xakiim ah oo khabiir ah, ayaa diinta soo dejiyey, isagaa sharciyeeyey. cilmigiisa iyo xikmadiisa iyo khibraddiisaanu ku sharciyeeyey. xukum kastoo axkaamta sharciga ka midna wuxuu koobsanayaa xikma. alaxkaamu sharciya waxay koobsanaysaa xikam baaliga. ficil kastoo ilaahay afcaashiisa ka midii wuxuu ku dhacayaa bixikma. odhaah kastoo odhaahyadiisa ka midna waxay ku dhacaysaa bixikma. ilaahayna waa alxakiimu alcaliim. mufasiriinta qaarkood markay xakiim fasirayaan waxay yidhaahdaan alxakiimu fii sulcih, waa kii u xikmadda badnaa waxa uu samaynaayo. wadaadada qaarkood oo isyidhi tarjama waxay yidhaahdeen waa ka fal suuban. af soomaali ahaan markay sidaa ku tarjumaan, laakiin tafsiirkaasi waa tafsiir qaasir ah oo macnihii xakiim aan wada tilmaamayn. siday culammada ahlu sunnati almaxda ay sheegeenna, xikmadda ilaahay kuma tacalluqdo oo keliya wuxuu samaynaayo ama abuuraayo keliya kuma tacalluqdo, ficilkiisoo keliyana kuma tacalluqdo, ee waxa kaloo xikmadiisu ku tacalluqdaa waxa uu odhanaayo iyo waxa uu sharciyaynaayaba, siday ugu tacalluqayso wuxuu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo mid walba. ashyaada uu abuurayo mid walba wuxuu ku abuuraya bixikma. saas aawadeed wax ceeba oo khalqigiisa abuurkiisa laga helayaa ma jiro. shay la odhanayo halkaa munaasib kuma aha inay halkan kaleu kaga habboonaa ma jiro. shay kastuu ilaahay abuuray wuxuu u dhigan yahay oo u abuuran yahay sidii ugu wanaagsanayd. bal hadda eegu sida markaa ilaahay innaga inoo abuuray. cidda kale arlada ku abuuran ee arlada gudaheeda ku sugan, bini aadamku waa ka qurux badan yihi. qaarkood beerkay ku socdaan, qaarkood 4 addin bay ku socdaan, qaarkood waxay ku socdaan marka 6 addin, qaarkood ka badan bay ku socdaan. bini aadamku wuxuu ku socdaa 2 addin, si qumaatiyana waa u taagan yahay. jidhkiisu waa isu dheeli tiran yahay. addinka 2 addin ma kala dheera, waa dheeli tiran yihi. faraha addimadaa hoose, addinka midig siday ugu taalla iyo addinka bidix siday ugu taallaa waa isu dheeli tiranta. farihiisa saas si leeg, gacmihiisa saas si leeg, indhihiisa saas si leeg, dhegihiisa saas si leeg. yacni mid walba waxaa loo abuuray sida ugu wanaagsan.
bal indhuhu hadday dhakada ku abuurnaan lahaayeen ka warran xagga sare bal ka warran hadday midna halkan ku abuurnaan lahayd midna xagga dambe ay ku abuurnaan lahayd quruxda hadda marka qofku leeyahay ma yeesheen waxaa loo yeelay wejigiisa waxaa laga dhigay ka ugu quruxda badan waxay soo naqliyaan culammadu qiso boqorradii hore boqor ka mida ayaa nin u yimi waa boqorradii cabbaasiyiinta wuxuu ku yidhi haweenaydaydii baan waxaan ku idhi in lam takunii axsana min alqamari fa anti taaliqun haddaad dayaxa ka qurux badnaan weydo waad furan tahay gabadh yahay haddaad dayaxa ka qurux badnaan weydo waad furan tahay wax ma iga furmeen culammadii baa boqorkii soo shiriyey wuxuu idhi masaladan ka jawaaba badankii culammadu waxay yidhahdeen way furan tahay caalim culammadii ka mida aamusay boqorkii baa wuxuu ku yidhi maxaad u hadli weyday wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin aniga waxay ila muuqataa inayna furmin waayo allah wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim aadamiga waxaan u abuurnay joogga iyo muuqaalka ugu wanaagsan marka joogga ugu wanaagsan maadaama loo abuuray dee inay dayaxa ka qurux badan taha meesha ku jirta marka waxba kama furmin boqorkii sidiiba ku qancay xukunkiina ninkii waxaa loogu sheegay waxba kaama furmine xaaskaaga hayso ayaa lagu yidhi waxaynu u jeednaa ilaahay ficiladiisu iyo makhluuqaadka uu abuuray wuxuu ku abuurayaa bixikma wa kadalik waxa uu sharciyaynaayo iyo waxa uu odhanaayana wuxuu ku odhanayaa ama ku sharciyaynayaa bixikma xukun kastoo axkaamta sharciga ka midna xikmad buu ku fadhiyaa xikmad buu ku dhisan yahy culammaduna waxay yidhahdaan alaslu fi laxkaami atacliil asal waxa u ah axkaamta sharciga ah altacliil in la sababeeyo xikmooyin loo sheegaa u asala sidaas ayaa u asala ashyaada qaarkood haddii xikmada la garan waayo macnaheedu maaha xikmadu inayna jirin umuuraha qaarkood xikmada sidaa laynoo yidhi ma garanayno wa rubbamaa yucwisana itilaacu lakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa dhici karta xikmada inaynu garanno inaynu awoodi kari weyno ina seegto laakiin macnaheedu maaha xikmaddii haddaynu garan weynay waynay jirin maaha xikmad yaday jirta inaan garanayn fii bacdi alaxyaan aan garanno ama yaynaan garane xukun kastoo axkaamta sharciga ka midii wuxuu ku dhisan yahay bixikmah ayuu ku dhisan yahay ashyaada culammadu ay fahmi waayaan xikmada looga jeedo waxay ku gaabsadaan waa tacabudi waa laynagu addoonsaday hadda marka laleeyahy waa tacabudi maaha xikmada in la nafyinaayo laleeyahay xikma loogama jeedo xikmana saa looma odhan waa iminka haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo maxaa salaadaha qaarkood looga dhigay 4 ragcadood qaarna looga dhigay 3 ragcadood qaarna looga dhigay 2 ragcadood maxaa sujuudaha ragcad kasta looga dhigay 2 sujuudood rukuucahana looga dhigay rukuuc qura maxaa looga dhigay maxaa waxa weeye awqaadan loogu gaar yeelay waayo salaad kastoo salaadaha faralka ka midi waqti bay soo gashaa waqtina waa baxdaa xilligaa xilli aan ahayna lama tukado maxaa waqtigaa loogu gaar yeelay maxaa loo kala bedeli waayey ta 2 ragcadood oo waqti duhurka maxaa looga dhigi waayey ta 4 ragcadood oo waqtiga subaxa maxaa looga dhigi waayey ta 3 ragcadood oo waqtiga casarka maxaa looga dhigi waayey kullu daalika waxaynu xikamka garanayna maaha laakiin xikmaa ku jirta allah og yahay culamadu marka waxay ku gaabsanayaan ashyaada xikmadii la garan waayo waa tacabudi macquulul macnaa ma aho macnaha sidaa loo yidhi inagu fahmi mayno garan mayno ma caqliyaynayno ilaahay baa xikmadaa la gaarka xikmadaa garashadeeda allah baa la gaar ah inagu fahmi mayno waa tacabudi oo laynagu addoonsaday axkaamta sharcigu hadday tahay caqaa'id iyo hadday tahay axkaam camaliya furuuc fiqi ah iyo hadday tahay akhlaaqiyaadka mid walba waxaa loo sharciyey sida ugu wanaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi bucistu bilxaniifiyati asamxa waxaa layla soo diray tii shirkiga iyo baatilka ka iilashada badnayd miladii iyo diintii ka iilashada badnayd baa layla soo diray tii samaaxada iyo markaa dhibirsanaanta u saaxiibka ahayd baa layla soo diray ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa xaniifiya fi tawxiid waa samxa fi sharaa'ic xagga sharaa'icda haddii laga eego asharaa'ic alcamaliya sharaa'icda camaliga ah waa samxa waa mid samaaxa iyo markaa dhibirsanaan badan waa mid sahlan waa mid fudaydna u saaxiiba sharaa'icdii camaligahayd waa saas waa sahlanta waa fududa xagga tawxiidkiiyo ictiqaadkana waa xaniifiya waa mid ka iilanaysa shirki iyo baatil oo dhan ka iilanaysa ya taasaa nabiga lala soo diray calayhi salaatu wasalaam xadiiskana sheekh albani waa taxsiininaya fii majmuuci turuqih allah wuxuu yidhi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla waa dhammaystiranto waa kaamil noqotay
kelimaadka rabbiga kelimatu rabbika iyo kelimaatu rabbika labadaba waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabci ah macna ahaanna waa isku mid kelimaatu rabbika marka la akhriyo waa qiraa'o marka sabciye waxaa macnuhu u dhacayaa kelimaadka allah kelimaadkiisu waa dhammaystirmeen marka kelimaadkiisu oo dhan bay ku dhici kelimatu rabbika marka la yidhaahdana waa nakiro loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyo markaa lafteeda cumuum bay faa'iidaynaysa marka kelimatu rabbika waxay la macnatay kelimaadka rabbiga kelmadaha ilaahay iyo hadalka ilaahay baa dhammaystirmay awalba naaqis ma ahayn waxay yihiin qaar kaamila weeye sidqan wa cadla xaal ay markaa run yihiin oo qaar run u saaxiiba ay yihiin qaar cadaalad u saaxiibana ay yihiin culammadu waxay yidhahaan waa sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam xagga akhbaarta iyo wararka uu sheegay kelimaadka ilaahay ay sheegeen oo allah kelimaadkiisu khabarrada ay sheegeen iyo wararka ay sheegeen waa wada dhab xabad beeni kuma jirto maxaa la yidhahdaa runta waxaa la yidhahdaa sida ahlu sunnati waljamaca ay ku ijmaacsan yihiin alikhbaaru bima yuwaafiqu alwaaqic in laga warramo wax waaqica waafaqaya ayaa waxaa la yidhaahdaa run baa la yidhahdaa tacriifka ahlu sunna waljamaca waa kaas beenna maxaa la yidhahdaa beenna waxaa la yidhahda alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa in lagu warramo wax waaqica khilaafaya in lagu warramo ayaa waxaa la yidhahdaa waxa jira wax khilaafsan in lagu warramo ayaa waxaa la yidhaahdaa been ayaa la yidhahdaa ha loo badrheedho ama yaan loo badrheedhin looma shardiyo beennimada inuu qofku u qasto u badrheedho laakiin hadduu sheego wax waaqica khilaafsan uu sheego waxay noqonaysaa been buu sheegay tacamudka waxaa loo shardinayaa xagga dembiga uu qofku ku dembaabaayo sidaas aawadeed baa xadiiskii ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar qaydka mutacammidan waxay faa'iidaynaysa in waxa weeye kadibku hadduu u dhaco biduuni tacamud inaan waciidkaas iyo goodigaasi u sugnaanayn mutacammidanna waa xaal qaacidada carabiguna waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku sifo wuxuu u yahay lisaaxibi alxaal qayd iyo shartina wuxuu u yahay licaamili alxaal xaalka caamilkiisu waa maxay waa kadaba saaxibkiisu waa maxay waa ka kadibku ka dhacaayo faacilka kadaba ah marka xaalkii wuxuu noqonayaa wasfun fi lmacnaa xagga macnuhu sifo ka yahay marka qayd iyo shartuu u noqonayaa caamilulxaalkii oo kadaba ah waxaana shardigaa loogu daray si waciidku markaa ugu rumoobo waayo wixii khata'a ummadda looma qabto rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qaala allahu qad facaltu xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen allah wuxuu yidhi waan yeelay oo idiin qaban maayo o idinku ciqaabi maayo waxa ku kama'daan ama waxa ilowdaan marka wax alla wixii khabara ee qur'aanka ku yimi wakadalika fi lkutubi almunazala khabar kastoo ku yimi ama khabar kastoo allah sheegay waa wada run wax waaqica khilaafaya kuma jiro laa fi lmaadi walaa fi lxaal walaa fi lmustaqbal saas aawoodee xabad beena laga soo qaban maayo waxyaalaha qaarkoodoo gaaladu ay sheegaan oo yidhahdaan sidaasaa kitaabkiinuu sheegay wax jirana ma aha waa laba mid ama waxay sheegayaanay leeyihiin kitaabkiinaa sheegay baan kitaabku sheegin ama waxay leeyihiin wax jira ma aha ayaan weli yaga cilmigoodu gaadhin waxyaalo badan baa wakhtiyada qaarkood ay sheegi jireen waxay dadka qaarkood aad ula yaabi jireen oo gaalada ka midii doofaarka maxaa loo xaaraantinimeeyey waxay beryo dhowaad ogaadeen inay markaa ku jiraan waxyaalo markaa jeermisyo aad khatar u ah inay ku jiraan aad iyo aadna u fara badan markaasay waxay yidhahdeen sababtii loo xaaraantinimey waa tan kadib bay haddana waxay yidhaahdeen dee xal baa loo hayaayo waxyaalahan waa laga dili karaa war tanba hadda dirqi ku soo hesheene yaa idin damaano qaaday waxyaalo kale inayna soo bixi doonin ile cilmigiinnu waa kooban yahay ashyaada qaarkood markaa dhowaan baa hesheen wax kalala laaban inta aragtaan oo keliya umuruhu ma aha waxyaalo kaloo laaban baa jira waxaa dhici karta ashyaada qaarkooda la leeyahay sax ma aha inay tahay faham caalim ka fahmay aayaddana aksara min tafsiir lagu fasiray dabeed fahamka caalimkaasi ka fahmay baa waxaa dhici karta inuu qalad noqdo mar hadday tafaasiirtii kala duwan tahay laakiin ma dhici karto shay sariix ku ah oo aan wax kale aqbalayn ama culammadu ku kulansan yihin macnihiisu inuu sidaa yahay inay noqoto waxaan jirin oo waaqaca khilaafaya inay noqotaa ma dhici karto qur'aanku
caqiidada uu sheegayaa waa caqiide qummanoo toosan wuxuu ku baaqayaa alkitaab waasunnah arkaanuliimaan in allah la rumeeyo, malaa'igtiisa la rumeeyo, kutubtiisa la rumeeyo, rasuulladiisa la rumeeyo, yowmulaakhirka la rumeeyo, malaa'igta la rumeeyo, qadarka la rumeeyo. waa arkaantii iimaanka lixdaah waa umuur qaybi ah. rumaynta la rumaynaayo waa iimaan bilghayb. kitaabkii waa aragnaa laakiin sida allah u soo dejiyey waa hayb. nebigii ummaddu waa arkayaan oo ciddii la kulantay waa aragtay, laakiin in nebi laga yeelay waa arrin markaa haybi ah. laakiin dalaa'il iyo waxyaalo caddaynaya ayaa jira. caqiide qumman buu ku baaqayaa kitaabku. waaxidnimada allah iyo in allah keligii la caabudo ku baaqayaa. qul huwa allahu axad allahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. waa caqiide qumman. allahoo keliya in la caabudo ku baaqayaa. aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar. khalqigoo dhan allah baa abuuray. allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiraa. cid allah la abuurtay ma jirto. hal min khaaliqin hayru allah. allah maadaamuu khaaliqii yahay oo isagu khalqiga abuurtay, cidina aynay la abuurin, cidina aynay ku kaalmayn, xaq wuxuu leeyahay keligii in la caabudo. yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun. waxaa loo daliishanayaa abuurka allah khalqiga keligii abuuray inuu xaqu leeyahay keligii in la caabudo. tusaale caqli ah, walilaahi almasalu aclaa. cidii hadday kuu samafasho wanaag kuu samayso, wanaaggii ay kuu gashay cidaan wanaaggaa la samaynin, intaa in la egna aan kuu tarin, inaad isaga ugu mahadnaqdo, ciddii markaa wanaagga kuu samayso oo kuu samafashayna aad markaa u shukri naqi weydo, midaan xabbad kuu samayn wanaagiyo samafal ana aad ugu shukri naqdo, oo aad ku ammaanto oo aad ku qadariso. say u muuqataa? waxaan ka hadlaynaa qof adiga kula mida oo sida adiga lagu abuuray loo abuuray, oo intaad ku dhalatay inteeda ku dhashay. ha yeeshee xoogaa yacni markaa hayntiisa ama markaa adduunyaha markaa hayay, dabeedna markaa samafal kuu sameeyey, ixsaan buu kuu falay. kuma abuurin, adaan jirin kuma jirsiin, kuma korin. caafimaadka isagu ma bixin, nolosha isagu ma bixin, caqliga isagu ma bixin, jiritaankaaga iyo jirsiintaada isagu ma bixin oo kuma jirsiin. xoogaa samafal buu kuu sameeyey. inaad intii ugu shukri naqi weydo oo cidaan xabbad kuu gelin aad ugu shukri naqdaa, gaboodfal weyn inay taad garanayso. waa idinka maqlay inay waxa weeye ruuxa abaalka loo gala hadduu abaalkii gudi waayo dee in lagu dhaleeceeyo qaarkood gabaye loogu tiriyey. waxba yaanu xeer ka imarin, xoolana isiina xaashee nin libi kaa xisliye xumihii waa yaabay. bal waxaad ka warrantaa, walilaahi almasalu aclaa, adaan jirin ilaahii ku jirsiiyey ee ku abuuray ee kaa keenay min alcadam. adaan jirin buu wax jira kaa dhigay. adaan noolayn buu wax nool kaa dhigay. adoo daciifa ayuu ku koriyo mid xoog badan kaa dhigay. adaan markaa caqli lahayn ayuu caqli kuu yeelay, cilmu kuu yeelay, garashuu ku siiyey, xoog buu ku siiyey, cilmi buu ku baray. ila cilmiga haddaan allah kuu furinoo allah aanu ku barin, cilmiga baran maysid, noocuu doonaba cilmigu ha ahaado. nicmatuliijaad iyo nicmatulimdaad, nicmadii jirsiinta iyo nicmadii arsaaqidda iyo barbaarinta, mid walba kii kuu galay oo sidaa kaa yeelay mid jiro kaa yeelay oo caqli leh oo wax garanaya oo samac iyo basar leh, muuqaalkaa wanaagsan iyo quruxdaa kuu yeelay, xooggaa kuu yeelay. mar baad daciif ahayd, aanad kaadida iska bi'in karayn, oo lagaa bi'inayo, kadib saasuu kaa dhigay inaad isagii ka abaalka darto cid kale iyo isaga wada caabuddo, amaba isagii intaad ka tagto cid kale caabuddaa. gaboodfalkii ugu weynaa miyan ahayn? wa acdamu dulm, waa dulmikii ugu weynaa. diinta islaamku waxay sheegaysaa allahoo keliya in la caabudo, isagaana xaqu le in keligii la caabudo. yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah? qaala allah warasuuluhu aclam. qaala xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a. xaqa allah addoommada ku leeyahay waa inay allaha caabudaan, waa inay waxba ugu shariig yeelin la wadaajin. wa xaqu alcibaadi cala allahi an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay'a. xaqa addoommadu allah ay ku leeyihiinna waa inaanu cadaabin cidaan allah u shariig yeelin, waa inaanu cadaabin. kaasina waa xaqa addoommadu allah ku leeyihiin. tawxiidkii waa sahlan yahay.
ictiqaadkaasi waa ictiqaad saxiix ah, waa ictiqaad waafaqaya yacni mandiqiya caqliga waafaqaya, caqliga kama hor imanayo. ahlucilmigu waxay yidhahdaan alsharcu laa ya'tii bima tuxiiluhu alcuquul walakinahu qad ya'tii bima taxaaru fiihi alcuquul. sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigayaan oo aan dhici karin. laa ya'tii bilmuxaal waqad ya'tii bilmaxaar. shay caqligu ku wareero sharcigu waa la yimaadaa, laakiin wax uu mustaxiil caqligu ka dhigaayo aan dhici karin, waxaan dhici karin caqligu ka dhigayaa sharcigu lama yimaado. ashyaada qaarkood waa jirtaa caqligu inuu ku wareeraayo, laakiin haddana maca daalik caqligu wuxuu ka dhigayaa shay mumkin oo suuragal ah ee shay mustaxiila kama dhigayo. caqiidada diintu la timi maaha ictiqaad ka hor imanaya caqliga, mid ka hor imanaya caqliga saxiixa, mid ka hor imanaya maaha. waa dhici kartaa dadka qaarkood inay waxaas caqliga anigu waafaqi maayo, laakiin caqligii saxiixa ahaa miduu isku waafaqaya ma aha, waayo alcuquul mukhtalifa, caqliyadii waa kala duwan yihin. haddii caqliga hebel waafiqi waayo dee dad badan baa caqliyadooda waafaqayaan. ya sheekh baa wuxuu yidhi layta shicrii biayi caqlin yuuzalu lkitaabu wasunna. alla jeclaan lahaaya inaan garto caqliga lagu xukumaayo kitaabka iyo sunnada. mutaakhiriinta qaarkood ba waxay leeyihin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu. caqliga iyo sharcigu hadday iscaaridaan waxaa la hormarinaya caqliga. markaasaa sheekh radinaya wuxuu yidhi oo haddii la yidhahdo caqligaa la hormarinayaa layta shicrii biayi caqlin yuuzalu lkitaabu wasunna. waa taqyadiin ibnu taymiya. caqliga kitaab iyo sunno lagu xukumayo oo kitaabka iyo sunnaha xukumayaa waa kii? ma caqliga muctasiliga, maka ashcariga, maka jahmiga, maka muctasilada, maka qaraamida, maka falaasifada, maka ahlu sunnaha? waa kii caqliga lagu miisaamaya. masaa-isha qaarkood waxay odhanayaan firaqa qaarkood caqliga wuxuu ka dhigay mustaxiil. cala sabiili mithaal aljahmiya walmuctasila waxay leeyihiin sifaadka in sifaad ilaahay loo sugo sifaad mutacadida caqligu mustaxiil buu ka dhigaya, waayo waaxidnimaday ka hor imanaysaa. sifooyin badan buu leeyahay iyo waa waaxid isma waafiqi kartay yidhahdeen, waa mustaxiil. iyaga laftooda issii khilaafay. haddaba jahmiyadii baa waxay yidhaahdeen waa qolo luntae caqligu wuxuu mustaxiil ka dhigayaa magacyo badan in allah loo sugo, oo ruuxa yidhaahda 99 magac baa allah u sugnaaday, macnaheedu waxay tahay 99 ilaah buu caabudayaa. muctasiladu waxay war ka daa, warsaa maaha. ya asmaadu waa tacadudi kartaa iyadoo musamaha lagu magacaabay uu mid qura yahay, oo inay magacyadu bataan iyo inka magacyadaa lagu magacaabay amaba isku magacaabay inuu mid keliya yahay isma diidays. iyadoo musamuhu waaxid yahay ayaa asmaadu tacadudi kartaa. jahmiyadu waxay maya ma tacadudi karto. waxay ka dhigayaan jahmiyadii mustaxiil inay tahay asmaa mutacadida in rabbi loo sugo. muctasilina waxay leeyihin maya mustaxiil maaha. haddana muctasiladii waxay leeyihiin sifooyin mutacadida in allah loo sugaa waa mustaxiil. ashaaciradii waxay leeyihiin iyo maaturiidyadii war maya sifaadka kala saara. bacdu sifaat oo caqligu ku tusinayaa jira oo cilmiga iyo xayaatada iyo qudrada iyo iraadada iyo samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo baqaagu ka mid yahay. mar waxay gaarsiiyaanba ilaa 20 sifay gaarsiiyaan, marna 7 ugu bidhaanta dheer ee sifaatu almacaani la yidhaahdo ayay markaa soo gaar yeelaan. cilmun, xayaatun, qudratun wa iraadatun. adigu markaa waxa weeye ilaa 8 sifa ayaa markaa beyt ay ku cabireen. calaa kulli xaal waxay yidhahdeen sifaadka caqligu ku tusiyey mooyaane sifaadka inta kale caqligu ku tusin maayay yidhahdeen. hadda ma aragtaa marka waxa weeye caqligii la iskuma waafaqsana. waxaa la yidhi bakaylaa lagu yidhi mala hadal baa lagula baxayey bil 3 baad dhimanaysa. markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi haddii la isku waafaqo bil 3 la isku waafaqsan yahay haddii la helo aan dhintaba hadhow baa la arkayaa markaa qaar odhanaya waa 3 iyo maya waa 2 iyo waa 1. ya dee caqli la isku waafaqsan yahayba haddaanu jirin sida kitaabkii iyo sunnadii caqli u xukumaya. waa midda kale caqligu cuquushi waa iskhilaafsan tahay. waa midda kale caqliga macsuum ma aho qalad kama dhowrna. caqligu waa gefi karaa, mar waa gefayaa, waa garan waayayaa, waa maxduud oo xad buu leeyahay. waayo cidda caqligan la siiyey waa cid markaa waxa weeye garashadiisu xadidan tahay, araggiisii xadidan yahay, maqalkiisii xadidan yahay. in gaaruu wax ka maqlaa, in gaaruu wax ka arkaa. ya caqligiisu wuxuu idraakayo garanayaana waa in kooban. cilmulghaybkii iskama garan karo. xawaasta haddaad eegto waxaa markaa ugu xoog badan aragga iyo maqalka. in mucayanuu qofkii wax ka maqlayaa, intaa wixii ka dambeeya maqli maayo.
araggii hadday noqoto in gaaru wax ka arkayaa meel bannaan oo ban ah hadduu joogo aragtidii markuu saa u sii daayo masaafa maxduuda ayuu wax ka arkayaa wixii ka dambeeya haydhaydh baa ka gelaya amaba arkiba maayo waxaa laga yaabaa inaan u kala garan waxaasi ma qoriba ma qofba ya weer baa laga yaaba inu ku noqdo wixii ka dambeeyana arkiba maayo aragtidii ishu waa gafaysaa iminka haddii la soo qaado madibad biyo ah oo ul toosan la soo qaado sidaa loo geliyo ama qalin la geliyo indhahaagu waxay ku tusayaan meesha ushu kaga jirta biyaha inay ka kala jaban tahay si kasta ugu fiirso waad soo saaraysaa waa quman tahay waad ku celinaysaa war meeshu waa kala jaban tahay araggaagii baa kuu been sheegay waana xawaasta ku igu xoogga badnaa ka warran caqligii waa gefayaa waa qaldamayaa waxaan sax ahayn baa sax ula muuqanaya wakhtiyada qaar buu ambanayaa caqligii in heegga loo sii daayo ma aho laga horbaydho la yidhahdo caqlow iska soco waa ku dabagelayaay ee waxaa la rabaa caqliga in loo hogaansho sharciga loo hogaanshaa la rabaa sheekh culammadii hore ka mid ah wuxuu yihi man lam yaxtaris caqlahu bicaqlihi min caqlihi halaka bicaqlihi ruuxaan caqligiisa iska ilaalin oo caqligiisa ku ilaalin caqligiisuu ku halaagsamaya ya caqligi isagaad wax ku garanayso haddana waa inaad iska ilaalisa caqligu idda inuu meel daran iyo meel daada iskaa tuuro waa inaad xakamaysaa tidhahdaa war halkaasi halkaagii maahee ka joog haadaan baa dhici karta inuu kugula cararo ya cilmulghayb oo iska dabaasho waa inaad tidhaahdaa marka waxa baabkaagii ma aha waxaad garanaysa ma aha mar haddaanad garanayn adigu aanad idraakaynin oo arrin aad haleelayso aan ahay ya khabaru saadiq baa lagu kaaftoomaaye waxyigu wuxuu kuu sheegay ka qaado oo raaco dabagal laakiin haddii la doono sharciga in la dabageliyo caqliga oo caqligu muqadam noqdo caqligu wax walba ma kaaga warramaya cilmulghaybka ma kaaga jawaabaya ya dad badan oo caqli badan baa lumay culamada qaarkood waatay ka cabireen uutuu dakaan wamaa uutuu zakaan yacni firaa la siiyey laakiin dahirnaan lama siin qad aflaxa man zakaaha waxaa la rabaa nafta in la dahiraa la rabaa saasaa la rabaa caqiidada sharcigu sheegayaa waa caqiide qumman waana caqiide sahlan waa mid la fahmaayo walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir qur'aankii waa la fudaydiyey waantowga lagu waantoobayaa loo sahlo loo fudaydiyey mid ku waantoobayaa ma jira xagga axkaamta haddii laga eego axkaamta shareecadu koobsanaysa waa axkaam wada cadaalad ah waana bixikma waa soo sheegnay hadday cibaadaad tahay iyo hadday mucaamalaad tahay mid walba labada shahaado qiritaanka la qirayaa waa ruknigii koowaad ee diinta aruknu alawal waa labada asal ee diintu ku binaysan tahay an laa yucbada ila allahu waxdah wa an laa yucbad allahu ila bima sharac in allah oo keliya la caabudo iyo allah waxa lagu caabudayo in lagala kulmo rasuulka sala allahu alayh wasalam axkaamtaa shareecada mid qalloocan laga heli maayo mid waliba wuxuu ku dhisan yahay sida ugu fiican ma salaaddaa ceebi ku sugan tahay ma salaaddaa nuqsaani ku jirtaa maya waa xidhiirkii addoonka iyo allah isku xidhaayay waana afdalu lcibaadaat bacda shahaadatayn waa cibaadadii ugu fadliga badnayd weeye labada shahaado dabadeed waa silatu bayna alcabdi wa rabbi soomkii saas in la eg waa taskiya naftii bay tahiraysaa sabirkay baraysaa zakadii waa ixsaan dadkii loo samaynaayo rabbina lagu ateecaayo dadkii baa iska faalo qaadanaya waa istabantaabinayaan xajkii saas in la eg yacni waxa weeye beytkii ilaahay baa la soo booqanayaa amarkii ilaahay baa la fulinayaa muslimiintii baa ijtimaacaysa oo markaa kulmaysa faralkaa cumriga qofka saaranna waa soo gudanaya dembi daadin baana ku jirta higilkii muslimiinta oo isu yimi ayaa ku sugan xikam badan baa ku sugan axkaamta mucaamalaadka oo saas in la eego xukum kastaaba wuxuu koobsanayaa xikam baliiqa iyo masaalix cadiima ayuu koobsanaya naftu waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay cunto waxay u baahan tahay guri waxay u baahan tahay waxa weeye guur kullu daalika waxaa loo yeelay hab si baa loo xalaaleeyey oo loo baneeyey sina waa laga xaaraantinimeeyey zinadii baa la xaaraantinimeeyey guurkii baa la xalaaleeyey kasab xalaala la sharciyeeyey oo la baneeyey kasabkii xaaraantaa la xaaraantinimeeyey hadday ribo tahay hadday markaa waxa weeye markaa khiyaano tahay hadday laaluush tahay hadday buyuuca markaa la reebay sharcigu reebay tahay ama riba ha noqoto ama keyrkeed ha noqoto nahaa can bayci lgharar lacana rasul lahi sala allahu alay waslm akila riba wamukilahu wakatibahu washaahiday waqaala hum sawa lacana rasul lahi sala allahu alay slm alraashiya walmurtashi waxaa la xaaraantimaya dulmiga nahbiga sariqada ya kullu dalika waa la xarima walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbail xoolaha baail ha ku cunina maalkii waxaa la su'aalayaa ruuxa xagguu ka soo shaqaystay xagguuse ku bixiyey dariiq baa loo yeelay
waxa qofku gacantiisa ku haysto keliya kuma kaaftoomi karo wuxuu u baahanayaa waxa ku sugan dadka kale gacmahooda taana waxaa loo sharciyey buyuuc bayc dariiqyo kale wax ku soo geli karaana waa jiraan oo maalkii ugu iman karo ama ha noqoto ixsaan loo sameeyo ha noqoto sadaqo la siiyo ha noqoto hibe la siiyo ha noqoto hadiyad la siiyo ha noqoto miiraas iyo dhaxal inay ugu timaado ha noqoto jucaale inay ugu timaado iyo baadifad ha noqoto kullu dalika waa ariiqyo sharci ah cuquuddii waxaa loo qaybiyey qayb marka waxa mucaawadaad qaybna waa cuquudu tabaruc iyo tawsiqa cuquudda marka mucaawadaadka ee laba shay la isku bedelanayo la isdhaafsanayo waxaa loo yeelay shuruud adag cuquudda aan mucaawadaadka ahayn oo laba shay aan la isdhaafsanayn aan la isku iibsanaynin iyaga waa la sahlay waayo waa tabaruc iyo ixsaan shuruudihiisii waa la sahlay waxaa ku jirta xikma baaliqa qofkii dayn markuu qofka kale ka qaatay waxaa loo yeelay markaa in la yidhi markaa qor in markhaatiyaa loo yeelayo inuu rahan u sii qabsan karo oo sii haysan karo rahan kullu dalika waa lixifdi ilmaal nikaaxi waxaa loo yeelay yacni shuruudo iyo arkaan baa loo yeelay nikaax markaa bannaan oo sharci ah oo mashruuc ah ayaa la sharciyeeyey hababkii aan sharciga ahaynee bannaanaynna waa la diiday waayo shahwadii waa wax ruuxa ku abuuran marka waxaa la doonayaa dariiq sharciya in lagu jiheeyaa la rabaa laakiin shahwadii la yahago ama cidhidhi la saaro oo la yidhaahdo meelba uma dhaqaaqi kartid lagama dhigin lamana odhan sida xoolaha u isticmaal oo iska galaabaxa ya taana lama odhan habka ugu fiican baa laga dhigay waa usoo noqon doonaa mawduucaas insha allah axkaamta kale shareecadu waa saasi la eeg tusaalayaal baynu ujeednaa akhlaaqda haddii laga eego akhlaaqda waxaa loo sharciyeeyey sida ugu wanaagsan wa badlu lnadaa wa kafu ladaa wa talaaqatu lwajhi waalkalimatu tayiba in dadka kale lagula dhaqmo macruufka iyo wanaagga in la bixiyo macruufkaa la bixinaya ha noqdo mid maal ah kii cilmiga lahaa cilmigiisi inuu wax ka bixiyo kii caqliga wanaagsanaa ama caqligiisu raajixa caqligiisi inuu dadka wax kaga deeqo kii farsamo yaqaanay farsamadiisa inuu wax kaga deeqo wax ka taro kii ra'yi lahaa ra'yigiisa inuu kaga deeqo wax ka taro kii waxaweye xoole hayay gacantiisa markaa inuu furo oo ka anfaco yacni xataa markaa qofkii aan wax qaadan karin in loo qaado ama lagu caawiyo daabaddii baan wax saaran karayn ama gaadhigii baan wax saaran karayn war ila qaada in lala qabtaa waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan waa badlu nadaa bay soo gelaysa ama badlu macruuf wa kafu ladaa iyo dhibta in la haysto af iyo addinba aan qofkii markaa aanad waxba markaa cid dhibin afkaagana aad ku dhibin gacantaadana aad ku dhibin waxaad u geysata aanu jirin wa talaaqat lwajhi weji furan inaad dadka ku qaabisho dadka markaad qaabilayso weji furan inaad ku qaabishaa waa shay sadaqa oo fiican ajar baanu ku helaya hadduu ixtisaabo qofka akhlaaqda wanaagsan bayna ka mid tahay qofku weji cabuus inuu noqdo oo wejigiisu markaa uu noqdo weji laga didayo marka laga arko yacni aan lagu dhiiran karin laga baqaayoba oo laga didaayo oo mar walba weji cabuus inuu yahay oo marka la moodaayo inuu cadhaysan yahay ama dadka uu ku qaabilo si aad mooddo marka waxa weeye inuu aabbihii dilay oo kale inuu wejiga kab ka dhigo tan noocaasi waxay ka mid tahay akhlaaqda xun bay ka mid tahay wejiga waa in la furaa weji furaanta iyo marka waxa weeye dhoolla caddayntu xataa caafimaadka qofka waa u fiican tahay masuubo iyo ajar baa ku sugan ya laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin taliiq shay macruufka ka mid aha xaqiirin kulay ku tahay inaad walaalkaa weji furan kula kulanto biwajhin talqin ama biwajhin taliiq kelmadda wanaagsan iyo hadalka debicsan waalkalimatu tayiba hadalka wanaagsani wuxuu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan buu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan ayuu ka mid yahay waqul licibaadi yaqulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum hadalba kuu ka wanaagsan yahay in lagu hadlo wey dadka waa in lagula mucaamilaa dhaqanka uu ruuxu jecel yahay isaga inay kula dhaqmaan mid la mida waa inuu kula dhaqmaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa can innaar falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walyaأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey nebigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisu ha u timaado isagoo rumaynaya allah iyo maalinta aakhiro isagoo rumaynaya geeridu ha u timaado taasi waa xagga ilaahay walyaأti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha ula yimaado ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan dadka ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay isaga kula dhaqmaan ha kula mucaamilo ha kula dhaqmo dadka qaarkood waxay jecel yihiin in la ixtiraamo la qadariyo in la maamuso in laga dambeeyo ya in il qalloocan aan lagu eegin
haddana dadka markuu la macaamilayo wuxuu markaa kula dhaqmayaa sidaasi ka duwan wuxuu jecel yahay hadduu xataa qaldamo in loo cudur daaro laakiin isagu dadka kale markuu la dhaqmaayo wuxuu doonayaa siduu doono inuu la dhaqmo dabeecad wanaagsan miya maya maaha waa dabeecadaan ficnayn akhlaaqda wanaagsani waa taa uu sharcigu inoo sheegay waylun lilmutaffifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun yani waxaa laynoo sheegayaa dadka markaa dadka xuquuqdooda ka garoocanaya cadaab inay leeyihin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen aayaadkani haba ku soo degaan miiskii raashinka la miisaayey laakiin xuquuqda dadka laftooda waa soo gelaysa bay yidhahdeen hadduu qofku jecel yahay dadka markuu la dhaqmaayo inay isaga markaa xaqiisa u wafeeyaan dadkana xaqooda uu ka nuqsaamiyo mucaamalada iyo cirdiga ku saabsan iyo qadarinta iyo maamuuska nasiib buu ku yeelanaya aayadda ahlucilmiga qaarkood saas yadaa bay yidhahdeen marka waxaa la rabaa akhlaaq wanaagsan in lagula dhaqmo wa quluu linnaasi xusna nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaha xaysumaa kunt wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan xuquuqda markaa dadka in la ilaaliyo xaqu lwaalidayn xaqu ljiiraan xaqu laqaarib ya xataa naftaadu xaqay kugu leedahay inaad siiso ubadkaagu xaqay kugu leeyahay siisa ooridaada xaaskaagu xaqay kugu leedahay inaad siiso naftaadu ama jidhkaagu xaquu kugu leeyahay inaad siiso faacti kulla dii xaqin xaqah waxaad siisaa mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisa siiya shareecadu saasay kaamil u tahay gees walba waxay koobsanaysaa wanaagyaalkaasay koobsanaysaa waxay koobsanaysaa masaalix oo dhan in la soo jiidaayo jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid wax alla wixii mafaasida iyo dhibaatooyina waa daafacaysa wax alla wixii masaalix waa soo jidaysa masaalixda ay soo jidaysana waxa weeye waa masaalixda baraxala aan wax mafsadii la socon amaba raajixa miisaanka badan oo mafsadada ka miisaanka badan maslaxadu miisaan badan tahay almasaalix alkhaalisa aw alraajixa mafaasida shareecadu ay burinaysaana waxay tahay waa almafaasid alkhaalisa aw alraajixa mafaasidda markaa khaaliska baraxala oon maslaxaba u helin ama mafaasidda raajixa miisaanka badan wakada waxaa la mida ta musaawiga layna waa la mid waayo haddii maslaxad iyo mafsadadu isla ekaadaan mafsadada laga taxadiraya dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafaca laga hormarinaya masaalixda in la soo jiito ahlucilmiga qaarkood waxay tashriica islaamka o dhan wuxuu ku dhisan yahay yani dar'u lmafaasid iyo jalbu lmasaalix buu ku dhisan yahay saas aawadeed baa ciizadiin ibn cabdisalaam kitaabkiisa weyne qawaacidda ah ee uu bixiyey qawaacid alaxkaam fi masaalix alanaam waxa uu ku dhisay qaacidada wuxuu shareecada dhammaanteed waxay u wada noqonaysaa yani waxa weye dar'u lmafaasid iyo jalbu lmasaalix mafaasidana in la daafacaayo maslaxooyinkana in la soo jiidaayo sheekh kale wuxuu yidhi waxay u wada noqonaysaa markaa qaybta jalbulmasaalix bay dhammaan u wada noqonaysa waayo dar'u lmafaasid lafteedu waa maslaxo la soo jiidayo in mafsadadii kaa baaqataa lafteedu waa maslaxo la soo jiidayo mafsadadii inay kaa baaqataa waa maslaxo marka jalbulmasaalix bay u wada noqonaysaa dheh sheikh ka dambeeyaa sidaas yada ay yidhi culamada qaar waxay ka cabireen dar'u lmafaasidka shareecadu ku dhisan tahay tashriica islaamku waxay culammadu ka cabiraan daruuriyaat jalbulmasaalixa ay ku dhisan tahay shareecaduna waxaa laga cabiraa xaajiyaat kadib shayga saddexaada raaca wuxuu yahay waa aljaryu calaa makaarim alakhlaaq wa axsan alcaadaat in lagu socdo akhlaaqda wanaagsan iyo caadooyinka fiican taasina waa ta laga cabiro taxsiinaat iyo tatmiimaat iyo kamaaliyaat waa ta laga cabiro marka dhammaan shareecada halkaasay soo wadagelaysa shareecadu waxay amraysaa cadaaladda waxay reebaysaa dulmiga ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun aayaddaasi waxay yidhahdeen waa aayadda ugu kulminta badan khayrka amarka la amrayo khayrka iyo reebista sharka la reebaayo waa aayadda ugu kulminta badan oo ina allaha ya'muru bilcadli alcadli waxaa ku jirta alashaasi waa istiqraaqiya waxay faa'iidaynaysaa jamiicu anwaaci alcadli cadaaladda dhammaanteed bay amraysa cadli oo dhan bay amartay ka cadligii waa soo gelayaa nooc walba tawxiidkii waa cadli waxa ugu markaa cadaaladda badan marka cadli oo dhan baa la amray ixsaan oo dhan baa la amray waxaa soo gelaya ixsaankii waajibka ah iyo kii sunnaha mid walba waxaa la amray qaraabada in wax la siiyaa la amray waxaa la reebay xumaanta iyo munkarka ayaa la reebay wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi waxa la wixii shareecadu diiday waxay soo gelaysaa munkarkaa qayb ka midana waxa la yahay faxshaa qayb ka midana waxa la yahay bagyi kullina waxaa ammimaaya munkarka ayaa cammimaya cadliga sharcigu amraayo
wuxuu keensanayaa aana wax layahay inaan la isticmaalin walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mayso ruuxa waalidkii wuxuu sameeyey isaga loo qabsan maayo walaalkii wuxuu sameeyo loo qabsan maayo waa cadaalad naf waliba waxay kasbatay leedahay ya walaa taziru waasiratun wisra ukhra cadligu wuxuu keensanayaa xataa cidda gaalkee la necab yahay amaba cidda marka waxa weeye ahlulbidaca ee la necab yahay ama markaa ruux muslima oo aad markaa waxa weye aanad jeclayn xataa inaad markaa waxa ku joorfalin ead cadaalad u samayso haddaad xataad necab tahay dulmi waa inaad kula dhaqmin walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu weliba waxay ku soo degtay dadkii gaalada ahaa yaan idinku kallifin oo idinku xambaarin nacaybkaa cid necab tihiin inaa cadaalad samayn weydaan yaan idinku kallifin icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya inaa cadaalad samaysaan baa taqwada u dhow xataa cidda la necab yahay waa in la cadaalad sameeyaa waxaa jira hadal xikmad ah oo soomaalidu ay yidhaahdaan gaal dil gartiisana sii waa hadal fiican qisa la soo wariyey qisadaas waxay tahay cabdullahi bnu rawaxa ayaa waxaa loo diray reer khaybar markay ballanka buriyeen nebigu waa ku duulay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa laga gacan sarreeyey nimanki waa laga guulaystay waa la furtay khaybar kadib markii la furtay dabadeed heshiis baa lala galay gaaladii yuhuudda ahayd ee reer khaybar baa heshiis lagula galay beerihii laga furtay ila muslimiintay ku wareegeene beeraha ka shaqeeya ku tabca wixii ka soo baxa nusow nus bay inoo tahay heshiiskaana waxaan idinku sugaynaa intaanu doonno sidii bay ku aqbaleen heshiiskii lagu gaadhay beeraha timirtu wakhtiyay go'aano waa la yaqaanin timirtu goortay baxdo ee ay go'ayso iyaga lama aamini karo waa khiyaamo badan yihiin saas aawadeed waa in laga jeegareeyaa oo intaan timirta la goynin la qiyaasaa timirta ku taalla dhirta si hadhow lagula xisaabto haddii kale in yarba intay keenaan odhanaya intan baa ka baxday inoo kala bara wixii kaleo dhanna waa khabaysanayaan cabdullahi bnu rawaxa loo diray xilligii timirtu inay go'do ay ku soo dhoweyd laakiin weli aynay go'in waa khabiir timirta yaqaana beerihii buu dhex maray geed walba waa soo istaagay waa eegay inta ku taalla saasuu ugu wareegay beerihii kulli waa maray kadib waa ku soo urureen waxay isleeyihin dee ninkan waa nin idinla colo waxaan meesha ka bixin buu dhalada idinka saari doonaa hadhowna markaasaa la odhanaya intaa barhkeed keena markaasaa wax yaroo aan naf lahayn idiin hadhi doonaan tay ka baqayaan waa saas ya iyagoo baqaya ku soo urureen dabeedna wuxu uhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray kulligood idinkaan idinku necbahay cidaan idinka necbahay ma jirto laakiin taasi igu kallifi mayso inaan idii cadaalad samayn waayo igu kallifi mayso saxaabigaa odhanaya cabdullahi bnu rawaxa timirta beerahan ku taallaa tirsigeedu waa intaas qiyaasihii markii lagu qiyaasi jiray intuu ku cabbiray qadarkaa kama badna kamana yara waa taqdiir waxay yidhaahdeen cadaaladda arlada iyo cirkuba cadaaladday ku qumeen saaad sheegtay weyi shareecada islaamku waxay ku baaqaysaa in waxa weye wixii khayra la isku kaashado wixii sharana aan la isku caawino la isku kaashan watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan waxay ku baaqaysaa allah iyo rasuulkiisa in la ateeco daacadoodana mutlaq tahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuul wa uli lamri minkum wa uli lamri lama soo celin daacadii mar saddexaad lama soo celin wa atiicuu haddana lama odhan wa atiicu ulil amri lama odhan waayo haddii sidaa la odhan lahaa daacada rasuulka iyo daacada ulil amrigaa sinmi lahaa ee hadda halkan waa la kala farqiyey waxaa laynagu baraarujinayaa daacada ulil amrigu inay muqayad ku tahay daacada ilaahay iyo daacada rasuulka laakiin daacada allah iyo daacada rasuulkiisu waa mutlaqa macnaa caynkaasa waxaa cabiray alcalaamatu ibnulqayim baa cabiray iyadoo sariixana waxay ku soo aroortay axaadiista nabowiga ah oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ama inama ataacatu fi lmacruuf iyo fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro maqal iyo ateecitaan macsidaa lagu ateecayaa oo lagu maqlayaa ma jirto haddee looma jeedo wixii kale ka soo hadhay macsida laguma adeecayo lagama wado saa ha u qaadan waxaa loo jeedaa khusuuska macsidaas baan lagu ateecaynin laakiin wixii ka soo hadhay waa lagu ateecaya inta aanu milladda ka bixin shareecada islaamka waxaa lagu yaqaanaa marka shay la xaaraantinimeeyo oo sharciga lagu xarimo waxa la wixii wadooyinee geyaysiinaya shaygaasna waa la awdaa wax sadu daraa'ic la yidhaha jira sadu daraa'ic wadooyinka mafsada keenaysaa la awdaya waa min maxaasin ashariica qaanuunada bini aadamku dejistaan waxaa la yaqaanaa shay baa la mamnuucaya la odhanayaa shaygaas waa mamnuuc oo la diidaa
asbaabtii keensanaysay yaday iska furan tahay ayaa shayga khusuuskiisii la diidaa haddama aragtaa qaanuunku markaa waxba bedeli maayo asbaabtii keensanaysaa furan sharciyada maxaa lagu yaqaanaa wax alla wixii mafsado geyaysiinaya waddada mafsado geyaysiinaysaa la diidaya qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum xubnaha taranka in la ilaaliyo waxaa ka horraysa in marka waxa weeye indhaha la laabto waxaa ka horraysa dumarka tabarrujkii inay iska daayaan inay xijaabtaan inay waxa weeye isqurxinta marka waxa weeye iyo bilicda dheeraad kale waxa le markaa inay suuqa la marin inay cadra inay soo marin oo suuqa la marin kullu daalika waa la diidey in muqadimadii zinada markaa laga fogaado walaa taqrabu zina walaa taznuu lama odhan haddana hami walaa taqrabu azina ha u dhowaanina zinada ya tahan ka mara tahan ka fogaada waa in laga dheeraado asbaabtii iyo muqadimaadkeedii oo dhan baa laga fogaanaya khalwadii baa la xaaraantinimeeyey ikhtilaadkii baa la xaaraantinimeeyey raggiiyo dumarku isdhex gelayeen ya muqadimaadkii zinada la xarimay kullu dalika waa la diiday dumarkii maxaa la yidhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa haddama arta ayuma imra'atin istacdarat famarat calaa qawmin liyajiduu riixaha fahiya kada wa kada yacni zaaniya waxaa la tilmaamayaa waxyaalaha zinada sababta u ahi xukunkii zinada inay xagga xaaraannimada ka yeelanayaan ay xaaraan noqonayaan taasaa la tilmaamaya marka shareecadu waxa weeye saas iyada bay cadaalad u tahay saasay markaa shareecadu u wanaagsan tahay wada maxaasin u tahay xikam iyo masaalix u koobsanaysaa qaybta dambe haddaan u gudbo dadka qaarkood waxay soo arooriyaan waxyaalahan iska dulmaray oo kale dee tafsiil badan markaa umuuraha lama geli karo wa ilaa dee xukum kastoo axkaamta shareecada ka mid ah hadday weysada tahay hadday janaabada in laga maydho tahay hadday salaada tahay hadday dikriga tahay hadday markaa tahay waxa weeye axkaamta kale ee shareecada xukum kastaba dee xikam baliiqa ayaa ku jirta masaalix cadiima ayaa ku sugan maxaasin baa ku sugan dhaliil male ya dadka qaarkood intay maxaasintii ka qarsoonto ayaa waxaa dhici kartaa inay moodaan in arrinkaasi uu qalloocan yahay laakiin ma qalloocne iyagaa fahamkoodu qalloocan yahay qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu tacma almaa'i min saqami waxaa laga yaabaa afku inuu qoonsado biyaha dhadhankooda xanuun ku sugan ama jiro ku sugan daraaddeed inuu u qoonsadaa laga yaabaa waa biyuhu qadhaadha waar biyuhu ma qadhaadhee biyaha maxaa ka siya biyaha waxba kama siiya carabkaaga wax ka siiyi dhadhankaaga wax ka siiyi adaa xanuunsanaya waa macaan qofka kanaacadu ku dhacday soomaydaan arag inuu yidhahdo biyuhu waa qadhaadh wax waliba qadhaadh u dhadhamaan waa saas wey qad tunkiru alcaynu daw'a shamsi min ramadi ishuna waxaa dhici karta inay qoonsato ilayska qoraxda bakooro ama daaf ku sugan kolba saad u taqaan aawadeed inay u qoonsataa laga yaabaa idhihii baa markaa daaf ama bakoora kaga dhacday markaasaa waxaa laga yaba ilayska qorax maanta maxaa ka siya qoraxdii caadi maahayn waar waa indhahaaga xagga qoraxda maahe waa xagga indhahaaga waxaan leenahay dadka qaarkood yani waa xagga fahamkooda wa kam min caa'ibin qawlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi alla fara badanaa mid ceebaynaya hadal qumano wanaagsan dhibtiisuna ay tahay fahamka buka xaggiisa ay ka ahaatay fahamkiisa buka fahamkaa buka markuu ula tegey ayuunbu wuxuu leeyahay waxani waa ma qumana waxani waa qalloocan yihiin waxa qalloocanna waa isaga fahamkiisa saas yada wey nin shaacira oo dee gabyaa ah ayaa dee wuxuu tiriyey gabay markaasaa xoogaa gabaygiisii la dhaliilay markaasuu u baanaya mogta ninkii dhaliilay oo dee uu tilmaamaya dee in markaa isagoo kale dee aanu gaari karin isagay dhici karta dee inuu qaldamo oo dee markaa waxa weeye waxyaala aan qumanayn inuu ku hadlo ya markaasuu calaya naxtu alqawaafi min macaadiniha wamaa calaya ida lam tafham ilbaqaru aniga waxay saaran buu idhi qawaafida meelaheedii inaan markaa ka soo xordo oo markaa aan dee gabayga markaa siduu yahay u tiriyo qaafiyadiisa iyo wasnigiisa ayaa saaran laakiin lo-du hadday fahmi weydo dee waxba igama saaraan ma lo baan wax fahansiin karaa ya yani wuxuu leeyahay cid waxa weeye yacni lo-o kale ka dhigan baa asalkii ahaan jiray marka cidaan hadda lo ahayn buu lo ku magacaabayaa majaaznima ugu magacaabayaa bijaamici albalaada faham la-aanta daraaddeed iyo damiinnimada inay kulminayso markaa ugu magacaabay qarinadu waa taas waa isticaara wey waxyaalaha haddaba dadka qaarkood ay dhaliileen bal lafteeda inuu wax ka yaro tusaalayno iyadaynaan ka wada gaari karin wakhtiguna inugu kooban yahay baa iyada lafteeda loo baahanyay waxyaalaha dhaliilaha la soo arooriyo oo dadka gaalada qaarkood ay soo arooriyeen ama mulxidiinta qaarkood ay keeneen qaar wax magaratiina ay dhici karto inay dee waxa weeye waxay kaga jawaabaan garan waayaan amaba qaar ay la dhacaan
waxaa ka mid ah in la yidhaahdo war diinta islaamka maxaa dadka xornimo loo siin waayayoo diimaha kaleba qofku intuu ka baxo islaami karaa oo isagoo nasraani abuu muslim noqon karaa isagoo yuhuudi ahaa buu markaa muslim noqon karaa isagoo diin kaloo gaalnimo haystay buu markaa islaami karaa muslim noqon karaa maxaa u tidhahdeen diinta islaamka lagama bixi karo qofka ka baxaana waa murtad oo dil buu mutaysanaya sida kii nasraaniga ahaa diintiisa uga noqon karo oo muslim u noqon karo maxaa loogu bannayn waayey kii markaa muslimka ahaa amaba islaamay inuu haddana ka noqon karo oo gaaloobi karo ama nasraaninimadiisii dib ugu laabmi karo ama yahuudinimadiisii shubhadaasi waxaa la odhanaya waa shubha liidataa waayo diinta islaamku waa xaqi weeye diimaha kale dhammaantoodna hadda waa baatil xaq iyo baatilna in la simo laysaga qiyaas qaato ma aha waa jirtaa kitaabka injiileed allah baa soo dejiyey kitaabka tawraadeedna allah baa soo dejiyey xaq bay ahaayeen risaaladaasina waxay ahayd khaas bay ahayd cid gaara loo diray labadoodaba nebi ciise iyo nebi muuseba waxaa loo diray dee reer banu israa'iil baa loo diray wa kaana nabiyu yubcasu ilaa qawmin khaasa wa bucistu ila annaasi caamma nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waxay risaala caama kutubaha horena waxay sii sheegeen nebi muxamed in la soo saari doono waa la ku bushaareeyey wa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed bushaarada lagu bushaaraynayaana waxay tilmaamaysaa in la raaco la rumeeyo nebiyadana dhammaan waxaa cahdiga lagaga qaaday haddii nebi maxamed la soo diro inay nebi maxamed rumeeyaan oo raacaan oo u gargaaraan waid akhada allahu mihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum rasuulun musadiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansurunnah qaala aaqrartum waakhadtum calaa dalikum isrii qaaluu aqrarna qaala fashhaduu wa ana macakum min ashaahidiin marka dhammaan cahdi waxaa lagaga qaaday haddii nebi maxamed la soo diro inay nebi maxamed rumeeyaan oo ay qiraan oo ay u gargaaraan baa cahdi lagaga qaaday waana fulinayaa nebi ciise markuu soo dego aakhiru zamaanka oo wuxuu ku camal falayaa ku dhaqmayaa kitaabka iyo sunnada sharcigii nebi maxamed lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam fa amakum minkum injiishii lagu soo rogay isaga lagu soo dejiyey kuma camal falayo saas aawadeed buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yattabicanii maadaamay sidaas tahay oo haddii nebi muuse iyo nebi ciiseba ay joogi lahaayeen nebi maxamed ay raaci lahaayeen oo ay sharcigiisa ku camal fali lahaayeen aakhiru zamaanka markuu nebi ciise yimaadana sharciga nebi maxamed ku camal falayo ciddi in la egna aanu ka leexanayn nebi ciise aakhiru zamaanka markuu yimaado waxay caddaynaysaa markii nebi maxamed la soo diray in injiil la nasakhay laguna camal fali karin waajibna ay tahay shareecada nebi maxamed lagu soo dejiyey in la rumeeyo la raaco la hoggaansamo saas aawadeed in injiil iyo tawraad hadda lagu camal falaa oo iyagii la raacaa oo nebi maxamed la raaci waayaa baatil weeye cidda nebi maxamed raaci weydaana waa gaalo ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannam khaalidiina fiiha waxaana laynoo sheegay inay kufriyeenna waa laynoo tilmaamay saas aawadeed dee kufriyo iimaan in la simo ma aha xaq iyo baatilna in la simo ma aha in laysaga qiyaas qaatana maaha xaq qofku markuu qirayna inuu dib uga noqdaa uma bannaanaa tusaale yar aan idiin soo qaado waa litaqriib waan soo dhowaynayaa qof baad xaq ku leedahay xaqaad ku lahayd buu kuu qiray wuxuu idhi hebel hebel wuxuu igu leeyahay $10,000 ayuu igu leeyahay waxaan qirayaa anigoo miyirkayga iyo maankaygaba qaba marka markhaati ahaada hadhow buu yidhi waan ka laabto laga aqbalaya ma laga aqbalaya lagama aqbalaya taasi waxa weeye waa xaq aadmi oo yar oo kooban ee xaqullahi cala alcibaad qofkii qiray wa xaqu rasuulihi labadii shahaadaba qiray inuu yidhaha dib baan uga laabanayaa ma dhici karta in laga dhegaysto laga yeeli maayo sidaa qaadigu ugu xukumaayo aan uga aqbalayn iqraarka inuu ka noqda iqraarka shahaadateynka inuu qiray inuu ka noqdana aan looga aqbalayn lagana yeelin waa midda kale gaalnimada la gaaloobo yaday xaaraantoo la ogsoon yahay haddana waxaa kaloo jira marka kufrigii noqdo kufri marka waxa weeye ridda'a markuu noqdo waa ka xun yahay kufriga asliga ah kufru riddati aglad min alkufri alasli binnasi waalijmac kufriga kufri ridda la yidhahdaa waa ka xun yahay kufriga asliga ah oo asal ahaan qofku gaal ahaan jiray iyo inuu markaa diinka noqod ku gaaloobay uu diintii ka laabtay diintii islaamnimo dib uga noqday way kala duwan tahay raasamaalkii islaamnima la ilaalinayaa waa xifduddiin waa diintii oo la dhowraayo
daruuriyaadka markaa lixda abayna ka mid tahay xifdudiin in diinta la dhowro saas aawadeed baa markaa waxaa cuquubadiisu ay noqotay qofka diinta bedela man badela diinahu faqtuluuh sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi bukhaarina saxiixiisa kusoo wariyey qofka diintiisa bedela dila haddii albaabkaa la furana dad fara badan baa gaaloobi lahaa marka si raasamaalkii islaamnimo loo ilaaliyo ayaa ku jirto xifdudiin baa ku sugan xifdudiin ayaa ku sugan waana akhito ay yidhaahdeen yuhuudda qaarkood ay yidhaahdeen yacni maalinta gelinkeeda horena maxamed rumeeye gelinka dambena ka noqda ya si waxa weeye dadka la joogaa is yidhaahdaan war markii horeba waa ku islaamaye laabashaday ka laabteen wax khalad ay arkeen dabeedna dad markaa waxa weeye iska dhag weyn oo dee iska raaca marba geeskii loo jiida ayaa jira marka waxay filayeen ya inay dad soo raacaan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam dad wanaagsan bay ahaayeen wax dheg weyni kuma jirto lakin waxaynu tilmaamaynaa sida yacni iyagu ay isleeyihiin dad baa idin raaci doona yacni marka iyagaa saas markaa u dhaleecaynaya laakiin saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad wada wanaagsan bay ahaayeen dad quman bay ahaayeen dad marka caqli fiican bay ahaayeen yacni waxa weeye dad immaca may ahayn dad dhegweynoo marba markaa cid iska raaca may ahayn abadan markay rumeeyeen haddana ka laabteenna mid ay la laabteen oo la noqdeen ma aha sida yuhuudi filaysay wax u dhacay ma jiraan markaa saas aawadeed arrinka ku saabsan waxa weeye diinta markaa qofka bedela inaan laga yeelayn diinta islaamka qofka ka noqda sidaas iyadaa bay markaa tahay waana yani xifdi diintii la ilaalinayo la dhowray wey masale labaad oo taa la sii xidhiidha waxay ku saabsan tahay maxaa ciqaabta looga yeelay qofkan markaa diintiisi bedelay ee diinta ka noqday dilka looga dhigay waxaa la odhanayaa wixii ugu weynaa ayuu markaa hadda ka tegay acdamu dembin buu la yidhi dembiga ka ugu weynaa waa dembigaa diin ka noqoshada ah oo dilka waa ka weyn yahay maadaamay sidaas tahayna wuxuu mudan yahay oo mutaystay ciqaabta ugu weyn wuxuuse kaga baadbaadi karaa inuu ka soo noqdo baabkii towbaddu waa u furayay maaha ilaaba ilaa waa la dilaya maaha waa la dilaya maaha arrinka dadka qaar ku celceliyaan xorriyatulictiqaad sax ma aha oo qofku uma xor aha wuxuu doono inuu iska ictiqaadiyo waa jirtaa de inaan dadka qaar lagu khasbaynin yacni islaamnimada oo dee cahdi ama markaa waxa weeye jizyo ay jirto ahlujizyaha sideeda loo daynayo hadduu ahlu jizye yahay jizyadiina aqbalo axkaamta islaamkana ku dareerayso laakiin xorriyatulictiqaad baa ku furan oo ku bannaan ma aha ee kaa laftiisa yaan lagu khasbin islaamnimadee xaaraan bay ka tahay gaalnimadu xor maaha waa addoon hadduu addoonnimada ilaahay diidana shaytaan buu addoon u noqday harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi waashaytaani waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray dabeedna waxaa lagu imtixaana naftiiyo shaytaanka inay addoomma u noqdaan masale kaloo la xidhiidha ahlu kitaabka qaarkood waxay yidhaahdeen war haddaa muslimiinta tihiin gabadhii kitaabiyadda ahayd ee ama yahuudiyadda ahayd ama nasraaniyadda ahayd ee aan sinaysanayn waxaad tidhahdeen waa noo bannaanta siday taasi idinku bannaan tahay ninkan nasraaniga ah ama yahuudiga ana gabadha muslimadda u banneeya si ay u noqoto mucaamala bilmisli dhaqankiinii wax la mida in laydinkula mucaamilo masalada waxaa ka jawaabay ahlucilmiga qaarkood baa ka jawaabay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin baa ka jawaabay wuxu uhi waxaa la odhanaya ninkan muslimka ah iyo gabadhan kitaabiyadda ah waxbaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waa maxay ninkan muslimkii wuxuu qirsan yahay gabadhan kitaabiyadda ahi nebigay rumaysan tahay oo nebi muuse ah ama nebi ciise ah inuu nebi ilaahay yahay oo rasuul allah soo dirtay inuu yahay ayuu qirsan yahay marka haddaba gabadhan muslimadda ah nebiga ay rumaysantaho nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam ninka kitaabiga ha rumeeyo way ku bannaanaanaysa haddaad rumayseen hadduu nebi maxamed rumeeyo muxuu noqonayaa ya ninkii kitaabiga hadduu rumeeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaa yasiir muslim buu dee noqonayaa marka adigoo le nebigii ay rumaysnayd ee nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam gabadhan muslimaddii ay rumaysnayd wuxuu ahaa falallow ama beenawaas ayuu ahaa nebi ilaahayna ma ahayn been baanuu sheegayey waxaana sixir iyo baatil bay ahaayeen iyo asaatiiru alawwaliin dee ma heshiin kartaan markaad nebigeeda rumaysana waa ku bannaananaysa waa xuja mufxima masale kale dadka qaarkood waxay yidhaahdaan islaamku dumarka xuquuqdooda hoos buu u dhigay mas-uuliyaadka waaweyn inay qabtaan waa u diiday ninkii waxaa loo banneeyey 4 dumara inuu guursado guur ku kulmiyaa loo banneeyey gabadhiina 4 nin inay mar keliya kulmiso looma oggolaan
talaaqii waxa la geliyey gacanta ninka oo isagaa mulkiyaa la yidhi oo talaaqa hantiya hadduu doono furaya hadduu doonana haysanaya gabadhiina talaaqu gacanta uguma jiro dhaxalkii lagama simin oo lidakari mithlu xadi alunhayayn ayaa laga dhigay labkiiyo dhadigii taasi miyaynay tilmaamayn xuquuqdii dumarka in hoos loo dhigay calaa kulli xaal shubahaad nooca ku saabsan ba jira waa midda koowaadee horta waxaynu tilmaamaynaa marka nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam iyo marar ka dambaysaba dumarku waxay ahaayeen qaar aad iyo aad loogu tacadiyey ahaayeen wakhtigii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam hablaha waa la xabaalnoolin jiray oo inantu markay dhalato ama markay yaro korte ee marka ay noqoto markaa inan xoogaa jirta ayaa la dili jiray oo god lagu ridi jiray wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat waatuu allah yidhi walaa taqtuluu awlaadakum ubadkiinna ha laynina marka hablaha waa la layn jiro xabaalnoolin baa lagu samayn jiray qaar waxay u layn jireen iyagoo ka baqaaya inay ceebeeyaan qaarna waxay u layn jireen baqasho ay ka baqanayaan caydhnimo iyo faqri oo ay leeyihiin waxaan siiya uma hayo mid ka mida ayaa gebiyey isagoo doonaya inuu markaa bal waxa uu inanta u xabaalnoolinayo u dilaayo ayuu doonaya inuu sharxo inuu geeri la jecel yahay qaarkoodna waxay u qabeen inay dulli ku haystaan waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab yani allah wuxuu inoo sheegaya marka midkood loogu bushaareeyo inan oo le inan baa ku dhalatay wejigiisu maalintaa wuxuu noqon jiray mid madow oo dugul ah murugo iyo cadhow la madow dugul yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih wuxuu iska qarinayaa maalintaa ragga waa dhuumanaya kaannahu inay ceebi u soo hoyatay xumaanta waxa loogu bushaareeyey daraaddeed buu la dhuumanaya wuxuu isku qaban jiray ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ma wuxuu ku haystaa dulli miyuu ku haystaa mise ciidduu ku duugaa miyuu aasaayo ciidduu ku duugaa mise dullu iskaga haystaa laba daran lagu duuransiiyey saasuu u qabay marka mid isagu aan aasin ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu jecel yahay haddana inay dhimato wuxuu uhi mawaddatu tahwa cumra shaykhin yasuruhu laha almowtu qabla alleyli low annaha tadri yakhaafu calayha jafwata annaasi bacdahu walaa khatanu yurjaa awaddu min alqabri inan mawaddo la yidhaha u dhalay wuxuu uhi mawaddatu tahwa cumra shaykh inanta mawaddo la yidhaahdaa magaceedu waa mawaddo waxay jeceshay oday inuu noolaado waa aabbaheed allowdaah ya odaygaana waxaad farax gelinaysaa caawa inayna gaadhin laqaadumay dhimatu liyi ya mawaddatu tahwa cumra shaykhi yasuruhu laha almowtu qabla alleyli low annaha tadrii waaba kala maanba iyadu waxay is leedahay aabbaha ha noolaado isna wuxuu leeyahay laqaadu ha dhimato yakhaafu calayha jafwata annaasi bacdahu walaa khatanu yurjaa awaddu min alqabri wuxuu ka baqayaa buuli dadku dabadii inay ku adkaadaan oo ay dhibaan buu ka baqaya wuxuu doonayaa geerida uu la jecel yahay inuu sababeeyo sabab falsafi ah oo ka dhigaayo inay tahay wax macquul ah wuxuu leeyahay sidii u doorka roonayd weeyo waxaan uga baqayaa inuu gumeed xumi intuu helo ya inuu gumeed ka mataqaanin inuu gumeed intuu helo inuu inantaa marka isaga waxaan yacni ku ciyaaro anigu markaan dhinto dabadeed anigina ma nooli iyadiina waxa helay inuu gumeed baa helayo marna nasabcaayaya marna dulaysanaya marna garaacaya yakhaafu calayha jafwata annaasi bacdahu walaa khatanu yurjaa awaddu min alqabri wax inantaa lagula xidido sodog loogu noqdo xabaal ka fiicanna ma jirto alla xabaal inaan kula xididaan fiican marka waxay la jeclaayeen waxay dhimashadaas kaan aasinna saasuu la jeclaa badiba qaar aan sidaa ahayn waa jiraan oo noolayn jiray oo qaarkood badbaadin jiray waa jireen laakiin waxaa laga tilmaamayaa arrinka saa'idka ee badnaa baa laga tilmaamaya mid kale wuxu uhi wain siiqa ilaya almahru alfun wacabdaani waduudun cashru axabu ashaari ilaya alqabru ya aniga haba lay keeno yarad ha lay keeno buuli oo yacni 1,000 diinaar ama 1,000 dirham iyo 2 addoon iyo geel 10 intaaba ha lay keene alleelay xididaday waxaan ugu jeclahay waa xididka qabriga weeye buuli waa in intaa la xabaalo la aaso xabaal ku hubsado taa kala kaalayba marka la eego dadkii markaa xadaaradda iyo ilbaxnimada sheegan jiray waxay waqtiyada qaarkood isku qaban jireen sida laga soo naqliyo qolyihii biisadiinta ahaa laga soo naqliyey mala istanbul iyo dhulkaasi ay ka talin jireen
inay yunaanka ka soo jeedeenna waa dhici kartaa waa tan la yahay jidaal bizanti oo kale leeyahay waxay waqtiyada qaar isku qaban jireen oo ay oran jireen qofka dumari ma insaan baa ma xoolaa yani halka ay gaarsiin jireen noocaas ah siday markaa u cabiidsan jireen iyo siday u geli jireen waxyaalahaasi aad bay isaga badnayd islaamka yani gabadha xuquuqdeeda waa lagu dhowray waa la ilaashay habalnalintii waa la diiday xuquuqdeedii waa la dhowray insaan muxtarama inay taa la tilmaamay hablaha barbaarinta la barbaarinayo la korinaayo la edbinaayo fadli gaara loo sheegay oo janno in lagu gelayo laynoo tilmaamay ya janno in lagu gelayo laynoo tilmaamay waxa la sheegay xaqa ay leedahay ayaa markaa la tilmaamay hooyo markay noqoto xaqa hooyada waaba laga weynaysiiyey xaqa aabbaha xaqa hooyadu inuu weyn yahay la tilmaamay dadka yaa ugu xaqnimo badan inaan markaa suxbada iyo hagaajiyo macaamiladiisa qaala ummuk qaala suma man qaala ummuk qaala suma man qaala ummuk markii afraad baa waxaa la yidhi aabbaha yani saasaa loo tilmaamay waxaa laynoo sheegay xagga markaa waxaweye thawaabka iyo ajarka inay kala mid tahay iyo xorriyada iyo markaa wax walba inay kala mid tahay iyo xuduudda iyo axkaamta ay kala mid tahay markaa waxa ragga wixii sharcigu ka reebay ka duway mooyaane asalku inama annisaau shaqaa'iqu rijaal waa in axkaamta ragga la wadaagaan wixii ay markaa daliil ka duwo unbay kaga duwanaanayaan ashyaada qaarkood oo nisfi laga dhigay waa jiraan taasna waxay ku soo aroortay waa 5 umuurood sida alcalaamatu ibnu lqayim sheegay shaykhu alxanaabila fi hada alcasrina ibnu caqiil wuxuu ku nadmiyey laba beyt taati cala nisfi fi 5 masaa'iluha macluumat lidawi alalbaabi walxadaqi cidqun shahaadatu miraasin caqiiqatuha uma diyaatu fakhud 5 cala nasaqi 5 umuurood baa laga dhigay in gabadhu ay tahay yacni xaqa ay ku leedahay nus inuu noqonayo mid waa xorriyada in nin la xoreeyo iyo in laba gabdhood la xoreeyo waxay noqonaysaa mid isu beegantay mid waa shahaadada fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa mid waa dhaxalka lidakari midlu xadi lunhayayn mid waa caqiiqada lilghulaami shaataan walilbinti shaatun mid waa diyaadka oo waxa weeye diyada markaa gabadhu waa nus weeye diyada ninka nuskeed weeye marka axkaamaha wixii la kala duway waxay noqonayaan inay kala duwan yihiin wixii aan la kala duwan isku xuquuq bay noqonayaan isku xuquuq ayay noqonayaan ama arrinka ku saabsan in mas-uuliyaadkii waxyaalaha caamkaa loo diiday ee sharcigu wuxuu siiyey qawaamada iyo maamulka ragguu siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim qawaamadii waxaa la siiyey ragga mas-uuliyadday leeyihiin mas-uuliyadda ayay leeyihin caqligoodu maadaama iyaga kaamil yahay iyaguna wadaa'if kale iyo shaqooyin kale ay leeyihiin shaqooyinka kale ay loo gaar yeelay hadda ma aragtaa maaha in la xaqiray markaa mas-uuliyadda loo diiday laakiin waa murabbiyat alajyaal waxa weeye waa warshaddii markaa soo saaraysay ubadka ee mujtamaca barbaarinaysa haddii warshaddii markaa waxa weeye loo diro shaqo kale tarantii xaggay maraysa yaa ubadkii dhalaya yaa ubadkii nuujinaya yaa ubadkii barbaarinaya yaa ubadkii xidaanaynaya ya yani waxa weeye dumarkii waa cawro almar'atu cawra faida kharajat istashrafaha ashaytaan waxaa la amray gurigeeda inay ku sugnaato gurigay marka waxa weye mas-uul ka tahay walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha hadda maarata yani waxa weeye waxbay ka mas-uul tahay mas-uuliyaddaa lagu aaminay inay ka soo baxdo wey haddii wax la baro markaa gabadhii waxa weeye mujtamacay anfacaysaa alummu madrasatun ida acdadtaha acdadta shacban tayiba alacraaqi marka waxa weeye wadaa'if baa loo kala yeelay shaqadii baa la kala jiheeyey taxqiir la xaqiraya maaha ta kale mas-uuliyaadka waxyaalo badan oo aynay gabadhi u munaasib ahayn baa ku jira oo dee ay caqlan aynu u garanayno inta kalena sharcigaa inoogu daray aynaan markaa waxa sideeda u idraakayn aynaan u garanayn oo mas-uuliyaadkii oo dhan waa laga reebay maamulada guud waxa ku saabsan dumarku inay qabtaan waa la diiday sharcan baa loo diiday ya caqligeenna aan ku garanno waxa sidaa loo yidhi yamaynaan ku garanno hadda maarata dumarkii waa naaqisaatu lcaqli sida markaa axaadiista ku soo aroorta oo ku timi mas-uuliyaadkana waa mas-uuliyaad markaa weyn yani dumarkana caatifadooda badan oo caqligooda isticmaalka isticmaalayaan waxaa ka badan caatifadooda shaqaynta shaqaynaysa gabadhi marka waxa ma furin kartaa markaysaga waxa go-aan dil ah ma furin karta go-aan dagaala ma qaadan kartaa go-aan dila ma furin kartaa yani waxa weye marka waxa qofkii dilka lagu xukumayey oo marka waxa weeye marka calaacalo ooyo yani caatifadii baa qaadaysa way isbedelaysaaba ya ka daaya ka jabiya hadday qisaas tahay hadday wax kale tahayba waa baajinaysaaba yani waa jiri karaan markaysa afraad naadira laakin annaadiru laa xukma lah shayga naadirka ay xukum ma leh
waa la odhan karaa markaysaga gabadh baa beri soo baxday caynkaas oo dagaalanto oo markaysaga dagaalada hogaamiso oo boqorad ahayd oo kayta ahayd oo sidan ahayd waa la sheegi karaa laakiin waxaa la odhanayaa taasi waa naadir iyo dhif hadday jirto wanaadiru laa xukma lah shaygu hadduu naadir yahayna xukum ma leh axkaamta waxaa lagu xidhaa shayga haalibka ee faraha badan leh ayaa lagu xidhaa shayga haalibkaana waxaa la yaqaanaa inaanay sidaas ahayn baa markaa lagu yaqaanaa ariga ku saabsan marka waxaa talaaqa in ninka loo dhiibay ninku waxa weeye isagaa gabadha doonay isagaa loo guuriyey isagaa mas-uul ka ahaa yacni waxa weeye marka la eego usrada madaxa usradu waa ninka mas-uulka ah waxay gaaladii leeyihiin marka maxaa ninka loo siinaya mas-uuliyadda hadda qolyaha markaysaga dee yurub iyo tegay waxaabay leeyihiin mas-uuliyadda waxaaba le gabadha baawar badan wadaad baa wuxuu ii sheegoo yidhi dadka yurub jooga yacni waxa weeye gaaladii waxay u buunbuunisay dumarkii marka waxa weye baawarka badan waxalay gabadha iyadana waxaa ka sii baawar badan ilmaha yar waa cagsi waa ra'san calaa caqib waa duunin markaa madaxeedii manje loo celiyey manjaheediina madax loo celiyey meesha leeyahay ilmaha yar baa ugu baawar badan bal ka warran aan caqligiisa ku fillayn markaasaa odayaasha qaarkood marka dee waxa weeyaan ay iyadu ku xumayso ayuu ilmaha yar soo ciyaarsiya isaguna waasaa lay sheegay anuu ma tegin laakiin kadaa qiili ilmaha yar caqligiisa kuma filla dantiisa garan maayo waalidku isagoo dagaalaya ayaa wuxuu u dagaalayaa dantiisa markuu u dagaalayo ayaa waxaa laga yaabaa ti intuu ka cadhoodo in marka uu yidhahdo waa lay maagaan dabeedna inta laga qaadaa laga yaabaa reer gaala in loo geeyo dantiisi ma garanayo adamaarka gabadhii markii waxaa la yidhi mas-uuliyaddii adigaaba leh markay doonto ninka waa eryeysaa markay deentana way soo celinaysaa ilaa qaarkood la sheegay saqda dhexe iyadoo la joogo inay ku tidhi bax adamaaragta haddaba markaa usrada marka la eego taladeeda siday ku habboon tahay ma in gabadhu taliso markaa ninku noqdo taxta alamri ma inuu ninku taliyo oo gabadhu taxta alamri noqoto ma inay tanaawub noqoto midba mar talada loo dhiibo wala intaasoo bilood kanaa haynaya intaasoo biloodna kan baa haynaya ama sanad kanaa haynaya sanadna kan baa haynaya ma in laha labaduba wada haynayaan caqli ahaankee suuragala sharciga waa sheegi doonaa sida markaa suuragalkee yacani waxaan ku caddaynaynaa caqli ahaan xataa siday sheegaya inay suuragal ahayn waa inay labaduba taladay wada haynayaan si isku mida ma dhici karto waayo fasaad baa ka imanaya miyaa la arkay shirkad laba maamule leh oo isku baawara war ma dhacdaa shirkadaasi ma laga yaaba meel inay gaadho shirkadaasi waxay leedahay laba mudiir oo isku baawar ah midna ka kale kama hooseeyo waana ka wada talinayaan waxay isku khilaafaan waa calaa jambi bay noqonaysa waayo hadduu mid amarkiisu fulo isku baawar maaha waxay isku waafaqaan baa fulayaan shirkadaas meel gaari mayso labana soo helayo xataa gaaladu ma isticmaalaan shirkad laba markaa mudiir leh wax la isticmaalo maaha in la yidhaahdo tanaawub baa la samaynayaayo in la yidhahdo gabadhaa maamul noqonayso ninkuna taxtulamri buu noqonaya dee ma suuragal ah waayo mas-uuliyaddii amarka dee ninkaa mudan xagga markaysaga caqliga inuu isticmaalo caatifadu aynay ka haalib ahayn dumarka caatifada ka haaliba wax yar oo ku yimaadaa laga yaabaa go-aan degdega ilbiriqsigaa inay ka qaadato in yar dabadeedna ay isciilkaa mido waxaa laga yaabaa ilbiriqsigaas waxay qasta iyo waxay qubto inay tahay hadhowna waxaa laga yaabaa inay markaa tidhaahdo yani waxa weeye waa qaldanaa waayo ma adkaysan karto caatifada haalib ah waxay jeclaato cirkaasay wada marinaysaa waxay nacdana mar bay wada tufaysaa yacni isma kala reebayso ma kala hadhayso hadda marata in la yidhaahdo waxa weeye tanaawub bay noqonaysaana ma suuragal ahoo haddii la yidhaahdo midba markaa wakti buu haynaya ama intaasoo bilood dee wixii la dhisaa markaa ka kala duminaya iyaduna ma hagaagayso saxdu waxay tahay sida sharcigu inoo sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa inay raggu markaa waxay mas-uuliyadda leeyihiin dumarkuwa taxta alamri yihiin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayni fakhaanataahuma taxta cabdayni taxta alamri gabadhu inay noqoto idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa axsanat farjaha wa ataacat zawjaha dakhalat min ayi abwaabi iljannati shaa'at gabadhu hadday shanteeda waqti tukato bisheeda ramadaan soonto bisheeda ramadaan ay soonto xubinteeda taranka ay dhowrto ilaaliso ninkeedana ay ateecdo albaabada jannada kay doontay ka gelaysa marka taacada iyo amarka waxaa le ninka ayaa qawaamada isagaa le saas aawadeed baa talaaqa iyo de amarkuba gacantiisa ku jira laakiin taa macnaheedu maaha inaanu la tashanayn tashaawurku waa jiraa waxaa jira xadiis daciif oo tilmaamaya shaawiruuhunna wa khaalifuuhunna fa inna fii khilaafihinna baraka xadiiskaasi ma sugna wuxuu sheegayaa dumarka la tashada markaad la tashataanna khilaafa
waayo khilaafkooda baraka ku sugan tahay laa baraka wax baraka oo ku sugan ma jiro xadiiskaasna waa daciif kama sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday ummu salama talo wanaagsan markay kula talisayna waa qaatay waana fuliyey mana khilaafin caamal xudaybiya wuxuu yidhi dadkii markii aan amray amarkii may qaadan oo hadigiina may qalin timihii may xiran hadigiina may qalin waxay tii yaa rasuul allahi adigu markaa waxa weye hadigaaga gowrac timahaagana markaa mid u yeedho iga xiir dheh markaad sidaa tidhaahdo iyaguna way fulinayaan sidii baa nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dadkuna markiiba iskula qamaameen arrinkii ay fuliyeen degdeg xataa waxaa laynoo sheegay marka ninka iyo haweenaydiisu ay kala tagaan ilmaha inay ka tashadaan inay ilmaha ka tashadaan ayaa laynoo sheegay calaa kulli xaal tashaawurku waa jiraa laakiin amarkii iyo taacadii waxa leh ninka ayaa leh talaaquna ninka gacantiisu ku jiraa talaaquna ninka gacantiisu ku jiraa damar haddii waxa weeye talaaqu gabadha gacanteeda ku jiri lahaa gurigu ma dhisnaadeen waayo dhacdo ta ugu yar oo dhacda ayay wada furi lahayd manay kala reebteen qisaa dhacday gabadh baa ku tiri ninkeedii talaaqa madi dhibti maxaad samayn lahayd laba qisoo kala duwan bay ahaydee mid ahaan waxay tilmaamaysay laba goor buu furay markaasay tiri mas-uul ma tihid xabad quraa hadhay anaa ku fara adaygayo keen wax yar oo basiida oo dhacay bay markiiba ugu yeedhisa ya ma hayn karto lama wada joogeen haddii talaaqu ku jiri lahaa gacanta gabadha mawduuca ku saabsan mas-uuliyaadka kollay dee adilo badan oo diidaysa ayaa jirta lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a laakiin ma aha daliilka keliya diidaya xadiiskaasoo keliya maaha mawduuca wakti kaleaynu ka warrannay adilo badan baa jirta oo mawduuca loo daliishanayo yacani waxaa u daliila oo laga daliishanayaa qur'aanka ayaa laga daliishanayaa mas-uuliyadda in raggu leeyahay walilrijaali calayhina daraja alrijaalu qawaamuuna cala annisa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacd kaanataa taxta cabdayni min cibaadina asaalixayn damarta sunno ayaa laga daliishanaya axaadiis nebiya mutacadida uu ka mid yahay xadiiskaasi iyo axaadiis kaleba waxaa laga daliishanaya ijmaaca muslimiinta ay muslimiintu ku ijmaacsan yihiin intaa mid walba ayaa u daliila haddii la yidhaahdo hogaaminta iyo maamulka dumarka ayaa yeelanaya waxaa ka imanaya fasaad baa ka imanaya bicadam alfalaax lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey wa fi saxiix albukhaari calaa kulli xaal mawduuca waqtiyo kale aynu ka hadalnay adilo badana uu leeyahayna aynu markaa sheegnay waxaa dadka qaarkood ay leeyihiin maxaa ninkii loogu banneeyey 4 dumara gabadhana loogu diiday 4 nin mawduucyo badan oo kale oo kollay dee markaa ama jihaad ha noqoto ama riqi ha noqoto ama oo kollay markaa ansab u ahaa in laga jawaabo waa jiraan laakiin tan baynu kusoo gaabsanaynaa maadaama waqtigu dheeraaday jawaabteedu waxay too lagaga jawaabayaan ninka waxaa loogu banneeyey inuu 4 dumara kulmin karo oo tacadudkii loogu banneeyey gabadhana loogu diiday waxaa ku jirta xikma rabbaaniya masaalixdii baana la ilaalinaya allah baana sharciyey laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allahna lama weydiiyo wuxuu sameeyo maxaad u samayseen laakiin khalqigaa la su'aalaa waxay sameeyeen maxay u samayseen waxaa ku filan in lahaa sharcigaa sidaa amray oo sharciyey tacliilaadka marka ay sheegaan waxay kaga kaaftoomi jireen saxaabadu inay ku gaabsadaan amarka sharciga caaisha markii la su'aalo lagu yidhi maxaa gabadha caadada qabta mucaada markay weydiinaysay xadiiskii saxiixa maxaa gabadha caadada qabta ay soonka u qallaynaysaa salaadana u qallayn weydi waxay tihi axaruuriyatun anti namo khawaarij baa tahay waxay tihi may waxay tihi kaana yusiibuna dalika fii waqti nabiy sala allahu alayh wasalam faya'muruna biqadaa'i asawm walaa ya'muruna biqadaa'i asalaa tacliilaad iskumay mashquulin tanaa badan tanaa yar tanaa caynkana xaraj baa ka imanay waxaa may tihin waxay tihi waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa taasina haleeli jirtay nebigu wuxuuna amri jiray soonka inaanu qallayno namana amri jirin salaada inaanu qallayno besba waa dhammaatay taasi waa jawaab labaad waxay tahay oo ninkaga jawaabi karaa iyaday taas horeba kifaayo tahay ninka in loo banneeyey dumar mutacadida inuu guursado oo markaa 4 dumara u kulmin karo waxaa ku sugan ummaddii oo la badinayo badinta ummadda la badinayana waxaa ku jirta quwa iyo xoog in ummadda la farabadiyana waa maqsuud sharciya tazawaju alwaluuda alwaduuda fa innii mukaasirun bikum alumama yowma alqiyaama kasrada quwa ku jirta cizaa ku jirta cidda badani waa xoog badan tahay cidda yari waa awood yar tahay allah wuxuu yidhi wadkuruu id kuntum qaliilan fakaharakum
waxaa xustaan markaa ahaydeen qaar tira yar oo allah idin farabadiyey xusaa waa nicma cadiima tagsiirku waata layahay alkasratu taglibu ashajaaca faruhu geesinimada waa ka qaalib noqdaan waa horaa waxaa la yidhi laba reer baa islaayey markaa reerna wuu yaraa baa layidhi reerna wuu badnaa reerkii yaraa baa libaysan jiray reerkii faraha badnaa ayaa waxa weeye nin ka mida ayaa wuxuu la shaxay nin reerkii faraha yaraa ka mida markaasuu war ninaad ka badantao kaa yar oo aad ka faras badantao ood ka ciidan badan tahay oo haddana kaa libaysanaya mar walba maxaa lagu sameeyaa gellimaadkaa loo joogteeyaa buuri mar walba ciidan cusub baa la geliyaa 7 maalmood isku xigtaa la galaa buuri tiradiisu maadaama yar tahay waxa galaafto laakiin waxa weeye maalin kastaba waxbaa ka dhimanaya waxna waa ka dhaawacmayaan mar walbana markaa reerkii badnaa wuxuu helayaa ciidan badana u geliyo marka waxa ay taasi cadaynaysaa maamaada carabta ay yidhahaan alkasratu taglibu ashajaaca faruhu waxay ka qaalib noqdaan geesinimada ayay ka qaalib noqdaan marka ummaddii in la badiyo alumma alislaamiya in la farabadiyaa oo ummaddu ay badataa waxaa ku jirta quwa gaala si kasta ay u xasuuqaan dee ma maranayso waxay noqonaysaa marka waxa maadaama ay fara yeeshaan oo ay bataan inay marka dambe waxa weeye marka ay dee ku soo aaraan marka ummadda in la badiyo waa maqsuud sharciya weeye marka tacadudka in ragga loo baneeyey badin baa ku sugan laakiin dumarka in tacadud loo baneeyo badini ka iman mayso waayo afar raximo ay wax ku kala qaado male kan hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad kanna hebel ugu qaad afar xubnood oo kala duwan male waa mid qura weel kaliya haysaa weelka kaliya la wadaagayana fasaad baa ka imanaya haddii rag kala duwan wadaagaan fasaad baa ka imanaya dumarkii haddii markaa waxa weeye rag kala duwan ay wadaagaan nasabkii baa isku dhafmaya mafaasid fara badan baa ka imanaysa cudurraa ka dhalanaya xishoodkii baa tegaya ila intaasoo ninoo kala duwan baa u tegaye ya nasabadii baa isku dheehgelaya ilmuhu u sugnaanaya ma geedi mise faarax ya hadday marka afartuba isu mareen keebaa ilmaha yeelanaya yaa loo qori tuuraya mise waa la garanaya kii lahaa yani waxa weeye wadaagga la wadaagayo waxaa ku jira fasaad waxaa ka imanaya cudurro ama jabti ha noqoto ama cudurro kale ha noqoto ama aidisba ha noqotee wadaaggaasi markaa saasuu markaa u yahay gabadhii waxaa ku imanaya cawaarid xanuunno hadday tahay waxa weeye marka wallac hadday tahay dhalmo hadday tahay labadii dhiigdhiiggii nifaaskii dhiiggii dhalmada marka ninkii xoogga lahaa ma helaayo gabadhu markaa ku tamatuco heli maayo yacni waxa weeye cawaaridda noocaasi markay ku yimaadaan weliba ahlu cilmigu waxay qabaan si aad dhici karta inaad la yaabtaan soomaalida agtooda waxaa ka caana shahwada qofka dumar iyo shahwada ninka waxa badan shahwada qofka dumara laakiin sax ma asaas shahwada ninkaa ka badan shahwada dumarka shahwada ninka aqwa ah isagaa xaraaro badan buruudaduna dumarkay ku badan tahay saas aawadeed shahwada markaa ragga aqwa ah saas aawadeed baa loogu sharciyeeyey tacadudka xikamkay ka mid tahay xikamka ayay ka mid tahay imaam axmed ibnu xambal markii loo sheegay wuxuu subxaana allah say u dhici kartaa shahwada markaa dumarkaa badan kii shahwada yaraabaa markaa loo xalaaleeyey tacadud oo kii shahwada badnaa baan loo xalaalayn wax suuragala maa waxaa dhacday xataa waqtiyada qaarkood dumarka qaarkood inay ka cawdeen markaa raggoodii ay yidhahdeen khaati baan ka joogaa beri baa gabadhi dacwootaa la yidhi markaasay tihi khaati baan ka joogaaye waqti ha loo xadido markaasaa qaadigii wuxuu ku yidhi gabadh kale dee markaa ha guursadee u ogolow ma iska daabay ti waa sabraya haddabe waxaa kaloo jirta dumarku marka ay qaan gaadhaan dee gabadh waliba waa isaga diyaar guur laakiin ragga mid kastoo dee qaan gaadhaa guur uma diyaar aha waayo takaaliif baa laga rabaa ya waxbaa fuulaya xoolee laga doonayaa xoolihii lagu dhisi lahaa xoolihii meherka xoolihii marka waxa mariinka masruufka waxa weeye waa inuu dee qorshe la yimaadaa ya laakiin iyadu nafteeda la imanaysa saas aawoodee qorshe kaleo ka xidhani ma jiro ta kale marar badan waxa dhacda in dumarku ka fara bataan ragga oo raggi yaraadaan dumarkiina fara bataan haddii la odhan lahaa nin waliba gabadh keliyuu guursan karaa maxaa imanaya dumarka qaarkood ma helayaan cid guursata shahwadina waa ku abuuran tahay dee waa inuu fasaad iyo zina ay timaadaa ya oo dariiq kaloo ay ku gutaan markaa shahwadoodii waa inay helaan taasna waxaa iman lahayd fawaaxishta iyo zinadu inay mujtamaca ku fara badato ayaa iman lahayd taas ayaa iman lahayd calaa kulli xaal yacni sida uu sharciga laynagu sharciyeeyey ayaa wuxuu yahay sida waxa weeye markaa ugu kamaalka badan ashyaadaynu sheegnayna waa wax yar oo ka mida gaaladii hadda waxay leeyihiin zinada intii la doona ayaa markaa uu ruuxu samayn karaa imanka faransiisku dhowaan waxay soo saareen oo ay yidhaahdeen xukuumadda xune ka jirta meesha
barlamaankeedii waxay yidhaahdeen 2 dumara ninka guursadaa waa jariimo maxkamad lagu taagi karo laakiin 20 dumara hadduu la saaxiibo dembi ma aha 20 dumara waa u tegayaa laakiin dariiqa aan marka guur ahayn buu u tegayaa zino 20 inuu marka la macaamilo oo si xaaraana kula macaamilo dembi ma ahay ku leeyihiin barlamaan ba hadda intuu fadhiistay saas soo saaray barlamaanka Faransiis haddii laakiin 2 dumara ninku qabo iyadu waa jariima yidhahdeen marka cala kulli xaal sida sharciga ku sugan ayaa waxay tahay caynul xikma ayay tahay waqtiga idinku dheereeyay raaliga ahaada inahaas baan ku soo gaabsanayaa wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.